Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wanaagsan saaxiibayaal idin ahaantiinba meel walbo dunida aad ka joogtaan. muuqaalkeenna maanta waa uu ka duwan yahay kuwii hore. waa qiso jacayl oo aad u xanuun badan. waa wiil Soomaaliyeed oo reer Hargeysa ah, hase ahaatee xilliyada ka mid ah ayuu cumro u tagay xajka barakaysan ee Makka. cumradaas uun kuma ekayn waayuhu waxa uu la kulmiyey gabar Soomaaliyeed oo halkaa uu tagay ku noolay, isku magaalana ay ka yimaadeen. inantii galgacal ayuu u qaaday oo kolkii uu Makka ka soo noqday kagama uu imaan sidii uu ku tagay waxa uu soo noqday isagoo soo cumraystay, balse tabaya waax ka mid ah taas oo ah inantii ay halkaa isku barteen. aslanba qiimaha shay walba waxa uu ku xidhan yahay inta uu kuu jiro ee aad heli karto. haddii aad haysatidna badanaa muhiimad saas ah kuma laha. jacaylkuna waxaaba la sheegaa marka uu ugu daran yahay inay tahay kolka labada qof kala fogaadaan ee xuduudda samayska ah iyo badaha mawluhu ku kala baray kala hortaagan yihiin, aad iyo aadna iskugu hiloobaan. labadoodiiba aaladda internetka ayaa marin ay fariimaha iyo codadka isu mariyaan u ahayd. halkaas ayayna sidii kuwa wada jooga isaga warqabeen, iyagoo jacaylkoodii iyo xidhiidhkoodii uu sii socdo oo halkii ugu sarraysay marayo ayaa waa adduunye wiilka aabbihii geeriyooday. waa aabbihii cumrada u diray oo carruurta kalena ay isaga dhowaayeen. geeridaasi waxay wiilkii jacaylka la daranyaysnaa ku ahayd fallaar waayuhu ku soo ganay oo meel xun ka haleeshay. isagoo geeridaas la daalaadhacaya ayaa culays kale uga biiray. naftii uu jeclaa ayaa maalin soo wacday oo u sheegtay in wadnuhu xanuunayo. dhakhtar tag ayuu kula taliyey. dhakhtarkiina war wanaagsan ma sheegin. xaaladdeedii ayuu ka sii dayriyey oo qalliin ayuu xal uga dhigay. laqalse kuma ladnaan, ku dhowaad 3 qalliin ayay martay, iyadoo kii ugu dambeeyey la yidhi farsamo xumo qalliinadii hore ah ayaa ku heshay oo xididada dhiigga ee wadnahaagu ma shaqaynayaan, sidaas darteedna waa in tuubooyin lagu geliyaa. sidaana xaaladdeedii ku sii xumaatay. xanuunkeedu waxa uu ku soo beegmay xilli uu geeridii aabbihii iyana la murugaysan yahay. waxay wiilka ku ahayd buur labaad oo la kor saaray. weliba mar walba waa ay iska warqabeen iyadoo xiriirkoodii sii kordhay. waxay sidaas ku jiraan oo mar walba iska warqabaan iyadoo xanuun la tacaalaysa, laftiisuna uusan wax badan badqabin, ayaa war naxdin lahi uu soo gaaray wiilkii. inantii hebla way dhimatay ayaa dhabta loo saaray. afkala qaad ayay wiilkii ku noqotay. waa adoo taadii awalba la ildarnaa, ilayskii yaraa ee kuu ifeeyeyna ha kaadamo. qisadaas murugada leh waxaa BBC-da uga warramay abyaa Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Axmed Cumar Haldhis oo ay saaxiib yihiin wiilka ay ku dhacday qisadan. ogaana intii ay inantu noolayd. markuu saaxiibkii u sheegay inay hebla dhimatayna, isaguna wuxuu baroordiiq uga dhigay maansadan ay erayadeeda ka mid yihiin: naftayda dabbaa ku shidan, boggana damqashaa mudan, jidhkani idubaaxiyow, digtoor ma hayee miyaan anigu ku dawayn karaa, dabiib kuu noqon karaa, degmada kaa celin kara, wadnaha idaloole ee haddana idanqaabayow, wuxuu dildilaaca ku yimid wadnihii ku dabooli lahaa. maansada magaceedu waa digrigii xubbiga. iyadoo intaas ka dheerna waxaad ka heli kartaa linkiga yaalla qaybta description-ka ama Facebook page-ka Xuseen Deeq Page. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan channelka subscribe saar. mahadsanid.